qaarkiisa maanta waxay leeyihiin idaacadaha aad ka maqashaan dawlad xoog badan oo gacan adaga loo baahan yahay dadka gacan adag ku qabato dawlad xoog badan oo dadka gacan adag ku qabato dadka cimrigooda heloon anigu kamid ah waa soo joognay waxa maanta joognaan ka dhaxalnay dawlad dadka gacan adag ku qabato qaanuun iyo shuruuc aan u baahannahay gacan adag ku qabatay shakhsiyaad gacan adag ku qabto dadku uma baahan marka dadku in ay qawaaniinta iyo nidaamkana waa inay ka dhacarkaan in ay maslaxadooda ka turjumay waxay aaminsan yihiin qaanuunku qaanuun aaminsan inuu yahay waxa ay danaynayaan qaanuunku mid difaacayo waxaas inuu yahay sharafta iyo karaamadooda ayagu dadku siday u arkaan mid difaacayo ilaalinaya qaanuunku inuu yahay laakiin qaanuunka haddii loo arko mida diintii waxba ku falayno ilaalinayno ku xadgudbayo oo sharaftii dadku ay lahaayeen ku xadgudbayo dhaqankii iyo qoyskii iyo nolonaashihii ku xadgudbayo oo beelihii meelo degan ay ku xadgudbayo waxba beel meel degan oo Soomaaliya oo miyi degan oo xoolo leh oo biyo la'aan ay ka jirto intii garanaysaa la yiraahdo waa waxay reerkaas waxay degan meel saddex subaxley ah saddex maalmooda biyaha si meel biyo loo taga loo sii soconaya saddex maalmood kalena waa laga soo soconayaa usbuuc ka bacdi reerku biyo helayaan reerihii meelaha deganaa markay baraag yar oo biyo roobku markuu ay biyo ugu aruuraan oo muddo kale intii roobka kale ka da'ay ka cabaan markii dawladdu intay tagtay ay ka dudumiso canshuurtii laga aruuriyey muxuu ahaa baabii iyo taangiga lagu soo gaday markii dawladdu intay yimaadeen ay dardarto jijibiso ay ku dardarto dadka ku disho ay arkayaan war diyaaradan sawtii lagu soo iibiyey aniga ma aha war baabahan sawkii lacagtii laga qaaday lagu soo dadkii dilayo dadkii shacabkii aan waxba haysan waxba galabsan oo ay gaasanaan hebel waxa uu rabaat rabi weyday ama muxuu ahay nidaamka jiraahay waxa uu rabaat rabi weyday war nidaamka haduu khaldan yahay waa khaldan yahay waanan dhigi karin waxaas marka sharciyo darro iyo nidaamka la sheegay marka maanta dhalinyaro waxaas waa wixii shalay way aragnimo iyo tacliim wax ku qaadashay noo leeyihiin laakiin waxa naga maqan mid hadda uu sheegay political imagination khiyaali siyaasadeed khiyaali mustaqbali inaan abuurno oo aan ka fikirno maaha kaliya inaan hibanno shalay wixii aan haysanay waxbaan ka baranaynaa wixii ku xumaayeen aan baranaynaa wixii fiicnaayeen naga baabi'iyeen inaan soo celinaan ka shaqaynaynaa laakiin beriyaan u baahnaa inaan ka fikirno beri 1960kii ma ahan beri 70kii ma aha 90kii ma aha beri waa beri cusub 2020 2030 2040 2050 iyo ka sii gadaal ayaan u baahannahay inaan dhahno waxaan rabnaa saas inaan noqonnaan rabnaa ilaahay idankiis Soomaaliya noocaas aan rabnaa Soomaaliya ammaankeedu sidaas yahaan rabnaa Soomaaliya dawladdeedu ay dadka waxaas u qabataan rabnaa Soomaaliya adduunyada sidaa ula macaamishaan rabnaa inaan muxuu ahaay aan waxayno adduunyada inaan erino ku buuqno caayno cadow u aragno malaayiin Soomaali ana muxuu ahaay inta la soo dhaweeyo meel la dejiyo la nooleeyo oo siyaasadana kaalay ka soo qayb galay la yiraahdo sida hadda la sheegay iskuma kaan qabato